bismillaahi araxmaani araxiim. dhacdadii dagaalkii la foole ee dhex maray talyaaniga iyo soomaalida qaybta koowaad. dadka Soomaaliyeed waxay degan yihiin dalka Afrika dacalkiisa bari. maalinta ay taariikhdu ahayd 25 bisha Novembar sanadkii 1896 waxa uu dagaal ka dhacay la foole ee ku taal duleedka Muqdisho. safar ka socday dowladda Talyaaniga iyo dagaalyahano Soomaali ah oo ka tirsan dadka degan gobolka Banaadir. safarka sahanka ahaa waxaa hogaaminayay sahmiye caan ah oo Talyaani ah oo uu magaciisu ahaa Antonio Sheki, oo ahaa sidaan gadaal ka ogaan doono ninka farta ugu fiiqay dowladda Talyaaniga gumaysiga xeebta Banaadir iyo guud ahaan koonfurta Soomaaliya. sanadkii 1896 waxa uu ku beegnaa sanad axad ah ee kalendarka Soomaalida ee loo yaqaano dabshidka. dagaalka waxa uu taariikhda ku galay in sanadka looga yaqaano gobolka Banaadir Axad Shiki, oo la micno ah sanadkii axadda ahaa ee la dilay Antonio Sheki. markaan ka hadalno dagaalka taariikhiga ah ee dhex maray gumaysidiidkii Banaadir iyo Talyaaniga, waxa uu ahaa bilowgii waayo cusub oo uu bilowday dagaaladii iska caabinta ahaa, kuwaas oo socday muddo dheer, marxalado kala duwanna soo maray ilaa iyo Soomaaliya ay ka xoroobaysay gumaysiga. halganka muddada dheer socday wuxuu laba ku noqonayaa halgankii geesinimada lahaa ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee daraawiishta. waa su-aale maxaa dhacay habeenka bishu ay ahayd Novembar 25 iyo subaxnimadii 26 ee sanadkii 1896. yuu ahaa Antonio Sheki? waa kuwii dagaalyahanadan dahsoon ee sida degdegta ah uga adkaaday gumaysigii ugu horreeyey ee Talyaaniga ee soo gala geyiga Banaadir? waa maxay sababta dhacdadani ay ula mid tahay guuldaradii bahdilaada ahayd ee gumaysiga Talyaaniga uu kala kulmay Ethiopia, dagaalkii Adwa, iyo ugu dambeyntii maxaa raad ah oo ay reebtay dhacdada la foole? kuwaasi waa su-aalaha aan rabno in aan halkan uga jawaabno. ka hor waxaa mudan inaan xusno in dowladda Talyaaniga iyo dadka Soomaaliyeed labadaba inay u arkaan dhacdada la foole in ay ahayd laysma aqoonin mid laysku bartay. maalintaa wixii ka dambeeyeyna xiriirka ka dhexeeya gumaysiga Talyaaniga iyo Soomaalida uu isbedelay. Antonio Sheki, oo ahaa ninkii usoo jeediyey damaca gumaysiga dowladda Talyaaniga dhanka Soomaaliya sida uu buuggiisa ku qoray Robert L. Hess sanadkii 1966 bogga 15, ayaa sahan uu hogaaminayay Antonio Sheki u dhaqaaqay dhanka dhulka gudaha ah ee xeebaha ka baxsan. Talyaaniga markaa wixii ka horreeyey waxa uu ku ekaa magaalooyinka xeebaha ah ee Banaadir sida Warsheeq, Muqdisho, Marka iyo Baraawe. Antonio Sheki waxa uu si aada ugu hanqaltaagsanaa inuu la soo saxiixdo heshiis suldaanka saldanadda Galladi. sahankaasi waxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee gumaystaha Talyaaniga uu isku dayo inuu gudaha u galo dhulka ka baxsan xeebaha Banaadir isaga oo wata ciidan militari ah. safarka waxa uu ka koobnaa Antonio Sheki oo hogaaminayay sahanka, 2 taliye markab oo labada markabna ay kala ahaayeen magacyadooda Stafetta iyo Volturno, 14 isugu jiray saraakiil iyo baxaari Talyaani ah, iyo 72 askari oo Carab ahaa. Stafetta iyo Volturno waxa ay ahaayeen maraakiib dagaal ay dowladda Talyaanigu lahayd. waxa ay joogeen xeebta geeska Afrika si ay u muujiyaan calanka Talyaaniga una ilaaliyaan danaha dowladda Talyaaniga, halkaasoo ay Talyaanigu ugu yaaleen 2 mustacmaradood oo kala ahaa Eritrea iyo Soomaaliya. waqtigaasoo Soomaaliya uu ka socday gadood aan kala joogsi lahayn oo lagaga soo horjeedo Talyaaniga. sababtaa ayuuna u joogay markabka biyaha Soomaaliya.
oo ahayd inuu caburiyo dhaqdhaqaaqa gumaysidiidka ahaa. waxa kale oo ay maraakiibta tegi jireen dekedihii ku yiil badda cas, waxayna ka qayb qaateen iyaga iyo baxaaridooda la wareegii talyaaniga ee dekadaha banaadir ee warsheeq, muqdisho, marka iyo baraawe. kooxda sahanka waxay wateen baqlo, fardo iyo geel oo talyaaniga u ahaa gaadiid, iyo owr 10 ah oo xamuul ahaa. waxaana sahanka galbinayay 16 caddaan ah iyo 72 askari oo carab ah. maalinta ay taariikhdu ahayd 25 bisha Novembar sanadkii 1896 ayaa waxaa la qabanqaabiyey safar sahan ahaa oo uu talyaanigu 2 ujeeddo ka lahaa. waa tan hore sahan lagu soo eegayay marinka webi Shabeelle, iyo mid siyaasadeed oo Antonio Sheeki rabay inuu heshiis kula soo saxiixdo suldaanka Galedi. sahanku waxa uu ka koobnaa Antonio Sheeki oo ahaa qunsulka guud ee dowladda talyaaniga, taliye Ferdinando Mefi oo ahaa taliyaha markabka dagaal ee Staffeto, taliye Francisco Mongiardini taliyaha markabka Volturno, Filippo Quiringhetti oo ahaa masaax ama geometer oo isagu rayid ahaa, iyo 13 kale oo isugu jiray saraakiil iyo baxaari oo iyagana kala ahaa. markaan ku horeyno saraakiisha: Alfredo Smuragli, Onorato Baraldi, Vincenzo Di Cristoforo, Carlo Sanfelici, Luigi Gozzolini, Licendo Paroni, Bernardo Gasperini, Giuseppe Olivieri, Giuseppe Rolfo, Bio Caramelli iyo Nicolo Vianelli. baxaaridana waxay kala ahaayeen Federico Gerigente, Natale Buonasera iyo 72 askari oo carab ah. sahanka waxaa lagu galay habeennimada halkay degeen oo ahayd La Foole, 12 mayl dhulka gudaha ah, habeennimadii markay saacaddu ahayd 1 habeennimo. waxaana lagu soo rogaal celiyey subaxnimadii 8:15 oo ay bisha Novembar ahayd 26 marka ay isku dayeen inay dib ugu laabtaan magaalada Muqdisho. waxaana halkaa dhegta dhiigga loo daray gebi ahaanba talyaanigii la socday sahanka, marka laga reebo 3 baxaari oo iyagana dhaawac ahaa oo kala ahaa Federico Geriganti iyo Nicola Vianelli, oo uu Vianelli isagu qabay dhaawac xun oo ahaa 2 fallaarood oo ay mid kaga dhacday daanka, tan kalena cududda. dhanka kale 72 askari 18 waa la dilay, 17 dhaawac bay ahayd. dhacdada dagaalka waxaa taariikhda u galay kuna waaray shirib laga tiriyey oo ahaa Shindigow Sheekh Axmed Xaaji Sheeki Shaydaan ma aho. Sheekh Axmed Xaaji Mahdi waxa uu ahaa sheekha wacdaan. wuxuu ahaa hogaamiyihii ugu saameynta badnaa, aadna u dhiiri gelinayay in aan la ogolaanin in gaalku dhulka soo dego. isagu dhalasho ahaan wacdaan ma ahayn ee waxa uu noqday sheekha wacdaan. waxa uu ku dhashay magaalada Muqdisho, waxa uuna ka soo jeeday reer Muqdisho, wuxuuna ahaa abgaal. waxa uuna ku noolaa halkaa noloshiisa inta badan. Sheekh Axmed Xaaji waxa uu cuntami waayey in uu ku noolaado magaalo gaal dhinac ka degan yahay, waxayna la noqotay in ay tahay arrin aan loo dulqaadan karin. wuxuuna doorbiday in uu guulo tuulo yar oo xeebta ku taalo oo la yidhaahdo Nimow, oo koonfur kaga aadan magaalada Muqdisho ahaydna dhulka wacdaan dhexdiisa. halkaa waxa uu ka dhisay jamaaco yar oo soo jiidatay dadka deegaanka ah. dagaalkii La Foole kadib talyaanigu waxa uu ku duqeeyey tuulada Nimow markab dagaal, waxayna ahayd markii ugu horreysay ee uu talyaanigu maraakiib dagaal ku duqeeyo dad rayid ah oo Soomaali ah. dhacdadan muhiimka ah oo ka mid ah taariikhda ummadda Soomaaliyeed waa tan loogu ogaansho yar yahay marka laga hadlayo halgankii dheeraa ee gumaysidiidka ee Soomaaliya, gaar ahaan kii gobolka Banaadir, walow ay dhacdadani raad weyn ku lahayd guud ahaan mustaqbalka Soomaaliya. waa sida la yiriye, dadkii iska indhatiraa taariikhdoodii hore weligood ma ogaan doonaan taariikhdooda maanta. waxaan kale oo dhihi karnaa ummad aan taariikh lahayn waa ummad aan mustaqbal lahayn, mana yeelan doonaan aqoonsi iyaga u gaar ah. waxaa la yaabaa in Soomaalidu aysan wax badan ka ogeyn dhacdada halka ay talyaanigu ka dhiseen taallo degmada La Foole, taasoo lagu xusuusto Antonio Sheeki iyo saraakiishii iyo baxaaridii halkaa lagu dilay, oo ilaa iyo hadda ka dhisan halkaa.
halka dhanka kale geesiyadii soomaalida ahaa iyo hogaamiyaashoodii naf iyo maalba u horay in uusan gumaysiga cagta saarin ciidooda daahirka ah ee dagaalka nooga shahiiday la iska ilaaway oo taariikhda ummadda soomaaliyeed aysan baal dahaba iyo mid maar ah toona uga qornayn, oo magacyadoodii iyo wixii ay ummadda soomaaliyeed u tareen halka ay ku shahiideen lagula duugay. waxa kale oo aan la isweydiinin raq iyo raad iyo ruux halka ay dhigeen dad fara badan oo uu talyaanigu qabqabtay dhacdada kadib, oo uu u aaneynayay inay ka dambeeyeen xasuuqa talyaaniga soo gaaray ee uu u musaafuriyey Eritrea, marka laga reebo sawiro uu talyaanigu ka qaaday oo rafaadka iyo dhibta ka muuqata ay yihiin wax aad looga xumaado. waxa kale oo Antonio Sheki lagu sharfay in lagu magacaabo qalcadda ciidamada talyaaniga ee Muqdisho oo loo yaqaano Forte Sheki, oo ay Soomaalidu u dhawaaqaan Forte Sheekh, oo gadaalihii noqotay taliska ciidanka booliiska. marka aan rabno inaan si fiican uga hadalno arrintaa, waxaa habboon in aan marka hore fahamno. waa marka koowaad xaaladda uu ku sugnaa gobolka Banaadir iyo kooxaha ugu waaweyn gobolka. waa tan labaadee taariikhdii gumaysiga talyaaniga iyo danaha uu ka lahaa Soomaaliya. iyo tan saddexaad oo ah doorka uu ka ciyaaray Antonio Sheki isballaarintii talyaaniga ee Banaadir. iyo tan ugu dambeysa oo ah raadka ay reebtay dhacdada Lafoole. arrimaha aan soo tilmaanay waxay muhiim u yihiin in la fahmo halgankii dheeraa ay Soomaalidii ku dhaqnayd gobolka Banaadir ay la galeen gumaysigii talyaaniga. haddaan mid mid usoo qaadanno arrimaha ugu horeyntii xaaladda uu ku sugnaa gobolka Banaadir. Banaadir waxa uu ka kooban yahay 4 dekedood oo kala ah Warsheeq, Muqdisho, Marka iyo Baraawe. 4 magaalo dekedeed waxaa deganaa Soomaali, Carab iyo dad kale oo uu asalkoodu ka soo jeedo meelo kala duwan iyo ganacsato ku timid badweynta Hindiya. dekadaha Banaadir waxa ay isku xiri jireen dhulka gudaha ah iyo ganacsiga badweynta Hindiya. safarada ganacsi ee u kala goosha Herer iyo Ogaadeniya iyo dekadaha Banaadir, iyaga oo soo marayo magaalooyinka ganacsi Luuq, Baardheere iyo Galladi. marka laga soo tago xeebaha dhulka gudaha ee Banaadir waxaa deganaa qabaa'il kala duwan sida Galladi, Hintire, Wacdaan, Biyamaal, Murusade, Shiidle iyo kuwo kale oo la mid ah. balse kooxaha ay qusayso dhacdada Lafoole ee Axad Shiiki waa Galladi, Wacdaan, Biyamaal iyo Murusade. saldanadda Galladi waxay dhisantay markii 2 qabiil oo Galladi iyo Wacdaan kala ahaa ay isu kaashadeen si ay xukunka uga tuuraan saldanadii Silcis, taa oo xukumaysay dooxada Webi Shabeelle. kacdoonka guulaystay ee 2 qabiil ayay ka dhalatay saldanadda Galladi, waxayna abuureen qaran xor ah oo ugu ganacsi xoog lihi ka jiro oo shaqaynayay muddo 200 oo sano ah. marka laga soo tago kala gedisnaanta hab nololeedka Galladi iyo Wacdaan, waxay abuureen gaashaanbuur muddo dheer shaqaynaysay. gadaalihiina qarnigii 19aad waxaa ku soo biiray isbahaysigaas qabiil kale oo ka tirsan hawiyaha oo ahaa Murusade. Wacdaan, qabiilka labaad ee saldanadda Galladi waxa uu ahaa Wacdaan. Wacdaan waxa uu ka tirsan yahay qabiil ahaan Mudulood, waxayna degaan Shabeellaha Hoose. horaantii qarnigii 18aad ayay isbahaysi la galeen sidaan hore usoo sheegnay Galladi iyo Murusade. deegaankoodu waxa uu u dhexeeya Afgooye dhulka xeebta ah ee Muqdisho hareeraheeda ah. dhulkooda waxaa buuggiisa ku tilmaamay Lee V. Casanelli sanadkii 1982 bogga 215. wuxuuna yidhi Muqdisho iyo Afgooye waxaa u dhexeeya 25 kilomitir oo geedgaab iyo isugu jira dhul caws leh. dhulkaa waxaa degan qabiil geel dhaqata ah oo la yiraahdo Wacdaan, kuwaas oo gaashaanbuur la ahaa Galladi 100kii sano ee lasoo dhaafay. Biyamaal, marka ay tahay Biyamaal waxa ay Shabeellaha Hoose soo degeen abbaarihii qarnigii 17aad, waxa ayna ka talinayeen magaalada Marka iyo dhulka gudaha ah. Biyamaal waxay dagaallo joogto ah kula jireen saldanadda Galladi, xitaa waxay dileen 2 suldaan oo Galladi ah intii ay dagaaladaasi socdeen. Biyamaal waa tusaalaha ugu fiican ee lasoo qaadan karo marka laga hadlayo iska caabintii gumaysiga. Lee V. Casanelli ayaana kaga hadlay dagaalyahanimadooda buuggiisii 1982 bogga 22. wuxuuna yidhi haddana su-aal kama taagnaa iska caabinta Marka inay ahayd tii ugu darnayd
uguna dheerayd gobolka banaadir. arrintaas wax la yaab leh ma noqonayso marka la fiiriyo taariikhda biyimaal iyo halgalmadii ay la galeen cadowyo badan, taas oo dhaxal siisay inay noqdaan dad isku xiran oo leh xirfad militarinimo oo ka badan tan ay leeyihiin inta badan qabaa'ilka koonfurta Soomaaliya. Murursade sidaan hore usoo sheegnay waxay kusoo biireen isbahaysigii Galladii iyo Wacdaan, waxaana la siiyey dhul waqooyiga Galladii ku yaal, waxayna ka dhisteen 4 tuulo. intaana waxaan kusoo gabagabeyneynaa qeybtii koowaad ee dagaalkii Lafoole ee dhex maray Talyaaniga iyo Soomaalida. qaybta labaad kala soco halkan oo ah channelka Rugta Hiddaha. dadku yaqaan taariikhdu durugsan bay jireen